kaga wada hadleen qalab cusub oo uu soo kordhiyay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo lagu talagalay in shirarka iyo fadhiyada golaha lagu tabiyo isla markaasna lagula wadaago warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi toos ah ayaa xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisaaq Siciid ayaan la isagoo faahfaahinaya ujeedada kulanka iyo qalabka ay soo kordhiyay golahuba waxa uu warbaahinta uga warramay qalabka cusub ee loogu talagalay in lagu tabiyo nidaamka tooska ah ee fadhiyada iyo shirarka golaha ee loogu talagalay warbaahinta kala duwan iyo qaabka ay warbaahinta iyo golahu u wada shaqeyn doonaan mudane Cabdisaaq Siciid ayaan la xogayaha guud ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mudeeyay maalinta Khamiista shir ballaaran oo ay wada yeelan doonaan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo warbaahinta maxalliga ah ee dalku kaasoo si weyn loogu lafagari doono isla markaasna lagu soo bandhigi doono siyaasadda golaha wakiilada Soomaaliland uu ka leeyahay warbaahinta iyo sidoo kale nidaamka ay u wada shaqeyn doonaan warbaahinta maxalliga ah iyo golaha wakiiladu aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku kulanno golaha wakiilada saxaafadii madax banaaneed tii qaranka iyo tii golahaba saxaafadu waa mindi laba af leh miidiyu sidiisaba marna shar buu ka sheegaa marna khayr waxaan jecelahay mar walba inaad dhinaca khayrka iska taagtaan waxaad gudbinaysaan mas-uuliyiin baad tihiin waxaanaad gudbinaysaan waxaa daawanaya intaas u milyan qof baa daawanaya waxaan jecelahay mar walba qarankeenana curdunkaa inaad mar walba iska taagtaan dhinaca wanaagsan taasaana khayrku idinku jiraa golaha wakiilada waa golaha keliya golahan dee ummaddaa soo dooratay waxaanu ka shaqeynaa waa hadalkana saxaafaddaa qaada annaga mar walba haddaan nahay ka golaha wakiilaan haddaan nahay waad og tihiin xor baad u tihiin saxaafaddu xor bay u tahay wax xildhibaanku ku hadlayo golaha wakiiladu dhismahan uu ku dhisan yahay oo dhan uu ku taagan yahay waa golihii gudaha markii xildhibaanku ku jiro iyo markuu deerka taagan yahayba waa golihii wakiilada weyn waxaanu ku soo kordhinay golaha waad og tihiin qalab cusub baan ku soo kordhinay oo awal dee saxaafaddu gudaha soo geli jirtay oo life inaan ku sii dayno ayaanu rabnaa kulankeenanu maanta wuxuu daaran yahay sidii aynu u wada shaqayn lahayd waxaan jecelahay saxaafadda Somaliland saddex